بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن وناكسن إذ لهان بددكينا داوانيو halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV xaruntiisa wadanka Sweden barnaamijkan gaarka ah oo aanu kaga hadlayno fanka iyo suugaanta ayaa waxaa toddobaadkan marti noogu ah fanaanad weyn oo caan ah kamid ahayd kooxda faca weyn oo hablada Waaberi waxa ay ahayd farsamayaqaanadii ugu horeysay ee idaacad ama radio Muqdisho farsamayaqaan ka noqota waxa ay ka mid ahayd matalayaashii ugu caansanaa ee dalkana Soomaaliya ee riwaayadaha matali jiray waxa ay sidoo kale halbowle ama wadab dhaxaad u ahayd kooxda hiddaha dhaqankeena Soomaaliya hablada Waaberi ee la oran jiray folklore dance haddaba yaanan idinku daalinin magaceeda muuqaalkeeda ayaad ba arkaysaan waa Xakiima Caalin Maxamuud Xakiima ayaa waxaa sharaf iyo maamuus bayno ah in ay maanta nala fadhido stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyada oo nala qabanaysa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo aanu ku jeexi doono taariikh nololeedkeedii waayaheedii kala duwanaa kuweedii macaanaa iyo waliba waxyaabihii ay usoo joogtay ha ahaadeen ama berisamaadkii ama burburkii wadankeena waxyaabihii ay kala kulantay marka ugu horeysa maama Xakiima Caalin kusoo dhawow telefishinka qaranka Soomaaliyeed kusoo dhawahay Cabdiraxmaan Xudayfi aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta uu noqdo anigoo muddo dhan ku dhawaad 20 sanadood aan ka soo muuqan shaashadaha caalamka ka soconayay in aan maanta soo hor fariisto telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV uu nasiib u yeeshay inaan ila kulmo aad ayaan ugu faraxsanahay waan ku faraxsanahay in aan ka hadlo maanta telefishinka qaranka Soomaaliyeed maama Xakiima annagana si taalamid ah ayaan ugu faraxsanahay in aad muuqaalkaagii ugu horeeyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed aad u duubeyso marka ugu horeysa kulley dadka ku bari mayno oo waxa aad tahay laakiin waxaa la yiraahdaa taariikhdu waa keyd mugurta ah waana maxay ahayd aad iyo aad waana wax muhiim u ah marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahayn bal in aad warbixin kooban aad naga siiso shakhsiyadaada Xakiima Caalin ahaan fanka xilliga aad kusoo biirtay iyo kaalin iyo doorarkii kala duwanaa ee aad matalaysay Cabdiraxmaan horta waa mahadsan tahay aniga horta fanka muddo dheer ayaan mataqaanaa ku biiray waxaan ka mid ahaa fanaaniintii qaranka hablada Waaberi oo ahaa udubkii ay ku taagnaayeen fanaaniintii Soomaaliyeed taariikh nololeedkayga haddaan kaaga warramo Cabdiraxmaan anigu horta hore fanka famil ahaan hiddo uma leh haddaan runta ka hadlo fanka anigu hobby ahaa anigaa jeclaa aniga waxaan deganaa xaafad la yiraahdo Bilaaji Carab laakiin hadda shibis ay dadku u yaqaanaan laakiin Bilaaji Carab dadka facayga ayaa ila garan kara si fiican marka xaafadaasaan ku noolaa ardayadaan ahaa iskuulada iskuul shibis ayaan dhigan jiray xaafadeena waxay ahayd xaafad inta badan laisla degan yahay laakiin waxaa u badnaa dadka dhaqanka carabta ah markaan iskuulka tagay waxaan sii raadin jiray shureec aroos laga tumayo hobbi wuxuu ahaa inaan muusiga gurbaankaas la tumayo iyo ciyaarahaas aan ka qayb galo iskuulka markaan kasoo baxo hooyaday galabta markay 12 saacay shureecada iga soo raadin jirtay anoo gabar yar oo ilaa 8 jirkaygii ilaa mutaqaana 12 sano jirkaygii marka aniga ayuu hobbi ahaa fanka maahan aniga famil ahaan fan hiddo uma lehin runaanti marka fankayga horta sidaas oo anigu hobbi ugu ahaa marka hablada Waaberi waxaad kaga soo biirtay dhinaca ciyaaraha hiddaha dhaqanka ha horta Cabdullaahi hiddaha iyo dhaqanka waan kaga soo biiray markuu kacaankii barakeysnaa dhashay wadanka Soomaaliya ayaan mataqaanaa waxaa jiri jirtay waxaa la sameeyay maharajaan la dhihi jiray looxatul qalfiya 17 dadkii aniga da'dayda ayaa ila garan kara idinka waqtiga ma aadan dhalanina ma garatay marka maharajaanka ayaa waxaan ku jiray ardadii la dhihi jiray looxatul qalfiya hiddaha dhaqanka matalayay dadkii hiddaha dhaqanka la baray anigoo da' yar ayaan mataqaanaa ka mid ahaa
siraajka africa laabtiisu saxar madow lahayn siyaad aa ku jirta hees caano oo heesta lagu xasuusto maharajaankaas maharajaanka ugu weynaa ee wadanka laga dhigana waa ahaa waxaan u malaynaya kadibna inaan arag maharajaankaas oo kale marka adigu degmooyinka ka socotay ha anigu may ani iskuulka ayaa ardaynimaan ku socday markii dambe waxaa bilaaday maya dugsi dhexaan ahaa dugsi sare weli markaa ma aanan gaarin oo da-da ay ugu fogeen cabdiraxmaano dugsi dhexaan ahaa standardsigisaan ahaa maharajaanka looxaat alqalfiya markii dambe tartamadii waxaa bilowday degmooyinka anigu waxaan ahaa degmada shibis dadkii mataqaanaa oo xaafadaha u tartamay ani keligay maahayn group badan oo saaxiibaday ahaa jiray waxaa jirtay barnaamij dad badan oo isoo saara run ahaantii ma iloobi karo taariikhdaas dad badan oo saaxiibaday oo ugula jiray fanka berigaas waxaan ku jira koox la yiraahdo hadda leenkooy sidaydi aada iyo aad oo isla degmada shibis ka degmada shibis ah hadda leenkooy sideedi hadda leenkooy sideedi ciyaar waxay ahayd ciyaar oo gabdho shimbir camal ah waa gartay mahadaha ka gaadho waxaa aniga macalinkayga cabdiqaadir ismaan cali sow aada iyo aad si fiican aada iyo ha oo actoorahayga actarkaygana ahaa fankana run ahaantii asaga ugu soo garab qabtay waxaa kamid ahayd gabar saaxiibaday oon aada u jeclahay shamse bashiir xasan aada iyo aad waan salaamayaa iyadana dadkii aan isla soo barbaarnay ahaayeen marka 73 ayaan maxay ahayd ka qayb galnay barnaamij la oran jiray heesaha hirgalay qaybta ciyaaraha ayaan uga qayb galnay run ahaantii waan kusoo baxnay degmadeena shibis iyo intii ciyaaris laakiin qaadasho ahaan ku biirid hobalada waa beri markaa ayaa lay qaatay markaas adigoo aada u yar aada yara bisaraaxa run ahaantii qof oo wax walba oo la baro la tuso maaragta isla markay qabsanayaan ahaa waa tahay marka ma jirta marka dad yaa dhiirigelintaadu marka cabdiqaadir ismaan cali sow iyo gruubkaas si weyn kugu dhiirigeliya reer shibis ma waa cabdiqaadir cabdiqaadir reer shibis waa berina waa ahaa aada iyo aad hobaladii folklore dance waa beri ugu caansanaa ugu firfircoonaayo kamid aha waa tahay marka marka hobalada waa beri aada ku beertay barnaamijkii ugu horeeyey oo aada la qabatay hobalada waa beri ma xasuusan karaysaa aada iyo aada cabdiraxmaan aniga horta markii aan barnaamij aan ku biiray ardaydna waa ahay iskuolna waa dhiganayo oo ardaynimadeydii aqoonteydii kama tegin waan watay mahdaa ka gaadhay markaana dowladii jirtay waxay ii ogolaatay inaan wax barto fankaygina aan wato ma garatay marka aniga safarkii igu horreeyey oo aan ka qayb galay wuxuu ahaa safar aan aadnay central africa oo aada iyo aada u qiimo badnaa wallaahi ilma ay qabanayso qofkii noloshii wanaagsaneyd soo maray iyo wacyiga maanta la maraayo laba oo xataa hal daqiiqa meel iskala baxaayo maaha safar annaga aan diyaarad qaasa wadano oo adduunyada meeshaa raba aan maray ahayd oo pilot soomaali oo diyaarad soomaali aan wato oo central africa burundi aan ka bilaabay zaire aan tegay waxaan tegay zambia waxaan tegay tanzania central africa oo dhan ayaan kusoo wareegay anigoo 3 biloodan socday diyaaradan wataa meeshaan rabaan tegay dowladnimada macaankeeda waa taasan markaad dal leedahay oo dowlad aada leedahay wax walbana waad leedahay marka sumcadaad leedahay dad waxaan ahayn waa nagala daba ordijay journalistyaarka annaga naga daba carinay dadkan gabdhahan quruxda badan intay ka yimaadeen shimbirihii geeska africa kasoo duulay waay war qurux badana gabdhaha soomaaliya war tartan walban ka qayb galna aan wanka galayna marka waxaa kamid a sawiradan cabdiraxmaan taariikhda waa lama iloobaan aniga burburkii dalka markuu dhacay dadka dahabka iyo lacagta ay aruursan jireen aniga waxaan aruursan jiray taariikhdeyda dhabarkan ku xiri jiray meel walba aan qaxan waan kala daba qaxi waan duudkaygu igu xiraa waxaa kamid a sawiradan haddaad cabdiqaadir oo garan karto u bandhig shaashada aada iyo aad waa maxay ahayd waa sawir aada iyo aada u qiimo badan adigaan hadda halkaan ka muuqda waa kan maxay ahayd aniga waa kan shamso waatan gabadhaan makaxasa cadoobaa la yiraa saynab cige wanaag qadiijo faynuus waa dadkayga saaxiibaday aan la soo barbaaray oon la soo noola aada iyo aad
waa gartay waa waayo aada u qurux badan marka halkee joogtaan marka waxaan joognaa Burundi waa gartay Burundi aan joognaa waxaa kale jiro markaan Zaire tagnay sawirro kala jiray waxaan jeclaa anigu kaydka inaan noqdo maanta ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad dad kale waxaan u malaynayaa dad badan inay kugu soo xasuusan doonaan oo aad iyo aad wallahi aniga kaliya ma waxaa lagu xasuusanayaa wixii wadanka ee qaranka ama waa biri ay qabteen kani waa maxay ahayd waa wadanka Zaire Congo Kinshasa waa kan madaxweynihii markaa jiray waa Mobutu Sese Seko annagoo ciyaarayna annagoo airport kusoo dhaweynayna annagoo matalayna qaranka Soomaaliyeed annagoo matalayna sharaftii ummadda Soomaaliyeed annagoo nala jecel yahay ayaa madaxweynayaasha ay si mataqaanaa ay kalgacal ay nagu soo dhaweynayeen si fiican marka kani waa Zaire adiga marka muuqaalkay tahay aniga muuqaalkayga waa kana qofkan geeska xigaanahay waa tahay marka waa gabdhii waa beri wada markaas waa isla rogays waa wada isla rogayna ciyaaraha cambuurkii dharkii dhaqankan wata halkaa ka muuqataan oo matalaysa dalkeeda iyo dadka Soomaaliyeed حكيم وياهم بالحسوس بالمقال والله وحوا عيل ومقابو وحنا عيل وقو ما انت عرفتي دو عاد بطريقه مريض وصومر وقت وحن صومر شرف له ما انت دي wax walba iga muuqdaan waxaan ku iloobayaa noloshii aan soo maray horta xakeemo waxaa tahay dugsi lagu hirto oo runtii aan filayo barnaamijkan aan maanta wada qabanayno in jiilal Soomaaliyeed oo aad u daayar oo aananba ogeynin in Soomaaliya ay dawladnimo ay haysatay in sharaf iyo maamuus ay ku lahayd guud ahaan dunida caalamka in meesha aad tagto lagu istaagay oo sharaf aad ku lahayd maantana aad arkayso dadkeeni in ay u haystaan inay wada yihiin dad wada qaxooti ah oo meel wada joogaan runtii macallin ayaad u noqon doontaa barnaamijkan wax badanna waanu sii jeexi doonaa maxaa kaloo safaradaada aad ka xasuusataa kulley way fara badan yihiin dabcan sida qiyaasay wallahi safaro badan waa ka qayb galay aniga taariikhda waxa igu xigtay oo aan rabaa inaan macnaha safar walba haddii laga sheekeeyo macnaha haddaan maanta bilaawno boqol maalmood dambana ma dhamaanayo marka inta muhiimkan ka soo qaadanayna waxaa jira safar aniga wix aniga noloshayda ku saabsana safar waxaa jira aan tagnay Liibiya safarkaas aniga waxaan ka qayb galnay bandhig faneed oo jaamacadda Carabta ay ka qayb gashay dawladii koowaad aan noqonay meel walba oon tagno qofka Soomaaliga wuxuu matalayay ummadda Soomaaliyeed idinkum waxaa jiray dad ajaanib ah oo waxay idin barayeen masa waxaa jiray dad macallimiin yaa idin tababaray annaga ajnabi waxba nama bari jiray annaga waxaan na bari jiray macallimiin Soomaaliyeed barnaamijka hidaha iyo dhaqankana dad iiga horeeyaa jiro oo ururin jiray macnaha dad macallimiin Soomaaliyeed baa waxna bari jirtay ajnabi annaga waxba nama bari jiray الله ونحرست وحكم إذا معلمين أبقال سعيد اللي هذا وصفر كنيجيريا نوغا دنتي محمد عبد الله سنقوب أبوان وين وعان ولا يقانو وانسلام يا وما أنتو حنجعل إنه كنوا لي ودن كجبوتي معلمين بدن أنا ضد اللي فانا هنا ياري هرو جري ماركت يا عصري عصرية أقسمين جن أنا ضد كنا نروح ضد وضع معلمين dadkaas labadaas qof example aan soo qabto waxa jir macallin kale Allah u naxariisto caalim leexan yiraahdo oo asagana ciyaaraha hidaha dhaqanka marka ciyaaraysaan marka maxay isugu jiraan marka tusaalahan adigu hadda ciyaaraha hadda aad baratay oo aad ciyaari jirtay maxaa kamid ah oo noo sheegi kartaa noocyada wallahi Cabdiraxmaan horta annaga maadaama aan fanaaniin qaran aan nahay hal ciyaar lagu koobnay aniga dugsi ciyaare dugsigan waa beri Somali folklore dance wuxuu ahaa dugsi wuxuu aniga marka hal ciyaar aqaan boqolka kalena waa la bari jiray boqolka kale macnaha for example gabadha Zayliciga ciyaarta waxay ciyaaraysaa ciyaarta kale ee laga ciyaaro Kismaayo iyo Jubbada Hoose gabadha Jubbada Hoose ciyaarteeda taqaan waxay ciyaaraysaa ciyaaraha Zaylici زيلع لقى عيال يعني هذا أنا بير عيال جيل قبل شيء برا عيال زيلع عيال عيال بطل عيال دانتن عيال معناه أنك عيال ومد الصوماليات أردن عيال أياس قبل ذكري أما ويل كلي كتر سفول كل أرداس ود عيالي حكيمه محسوسا كرتا قبلada hada sida ciyaaraha loogu kala ciyaaro dabcan waxaad moodaa dadka qaarkood hadda mudooyinkii ugu dambeeyay hadda Soomaalidu waxaad moodaa in dhaqankoodii dib u soo ceshanayaan laakiin aroosada laba ciyaar oo kaliya laga ciyaaro oo ah ciyaarta dhaantada iyo ciyaarta shiribka kaliya meelaha lagu yimaado ma noo kala sharaxi kartaa gobolada sida ciyaaraha u kala leeyihiin
ما حسوسا كرتان والله عبد الرحمن وعنصر. مسكحدينا مدفعة كل عيو أنا قرب الجوق ديرني ودنك وحن كسر مقانا يسدح سنادات لكن waxyaabo waa ka xasuusan karaa for example ciyaaraha horta ummadda Soomaaliyeed hada banaadirgo kala banaadir kabeebidi bay ku caanahay ciyaar oo batiiqo liirada laga ciyaari jiray dhinaca goboladan webiga oo maro oo dhan أو بتيقو قابك ولا عمر أو بتيقو عيار لعيار عيارها فولكلور كجرتا وتيلي كرتان حكى لو كمذا عيارة بيري وحال عيار جري نفتي هذا جبوينك قبل شمبر وحال عيار جري حمر يا حمر ضيا اللي يجي غير حمر ضيا قبل شمبر عنكو هاين وحي عنكو هاين وريكتو عيارة اللي يراهدو ولسق قبل هذا حال لقى عيارة بطل إيو عرقاب وحال لقى عيارة قبل هذا وقوي زيلع وحال لقى عيارة قبل هذا وقوي magaca zeylac ay wadataa iyo gobolada awdal dhaantu waxay laga ciyaaraa goboladan Soomaaliya ogaadeenaya laakiin annaga keena zeylac ka yimaada laakiin ciyaartan zeylaciga waxa ku jiro waa maxay salli iyo qaabka loo ciyaarayo marka qaabka ku soo bilaada salahan ma ladii kaga sheekay wallahi wana loo sheekay adigu waa ciyaar farxad وفرحة أروسيدا أيها لقى عيارة سيد حتى أن أركيو دلنيرة الصوماليات قربها جوكتي أصول نولين يعني داير دقن ونكون فرح سنة for example وحنا أركيا ماشي واجي هوري ويلكي قبل مركز جورسدان دانسي موسيقى لو صار جري حتى حلوة صار عيارة زي العيلة وحا ويلش دلنيرة هاي قربها هاد قصوا بحي وحي سمينا هيس دانتا وحي سمينا هيس زي العيال أهلا وفرح سنة لأن وصومالين هم عصرها كديجان هم موضل قرايان لكن هدنا شانتي يحوى عد كمارك أي سمينا وان هرومر وان وحلو بعين واتاي marka ciyaaraha fanka ordansiga iyo dhaqanka waan ku soo doonaa xakiimo waxa sidoo kale aad ahayd matala caanka ahaa dhanka riwaayadaha Soomaalida noocay doonaan ha ahaadeenba haba u badnaadeen riwaayadaha banaadiriga oo aad wax badan aad ka qayb qaadatay goormee ayaa bilowday marka inaad maxay aktarad aad noqoto oo aad dhanka banaadiriga ama riwaayadaha aad ku soo biirto horta Cabdiraxmaan oo aniga riwaayadaha waxaan ku soo biiray riwaayad la oran jiray Lul iyo Leyla malaka liitaan la fi hooda hal waaye la fi hooda hal waaye riwaayadaas horta gabdhaha atriijooyinka ah si fiican aniga gabar yarna waanaha in la isoo saarana waa la rib ma garatay in la isoo saaro marka fanka soo booda ma ah si fiican fanka adiga marka aad riwaayad bilaabaysid waxa lagu bilaabaa Forsabario dadka day yaqaanaan ma ogaan hadayna aqoon oo shaqeeya waa dhaxtal waa maya waa marka daaha la xiro oo daaha la xiro backgroundka laga sameeynayo ama guri laga sameeynayo ama hees loogu diyaar garoobayo backgroundkaas inta oo la sameeynayo Forsabario la yiraahdo sheeka la sameeyo marka dadka fadhiya lagu sii midadaaliyo aniga waxaan ka bilaabay Forsabario sheekooyinka riwaayad Forsabario ka bilaabay ilaa aan atriijooyinka waaweyn ee markaa wadanka ugu caansanaa aan ka mid noqdo ma garatay marka fanka waa ma ahan inaa hore atriijaan noqona maya annaga wata waxaan soo marnay wadooyin step by step ilaa aad inaad ku timaado aktarad aad noqoto waxa wada dheer u baahan tahay laazim waa qofku inuu khibrad qaataa waa in wax la baraa aniga dadka hore hadda dadka diimad si u socdaan atriishay noqon si u socdaan waa heesaayeen فنان هور لقنا فنان عانا اللي مركو وحنا وعصبوا هاد واب اسك امسنا وقلالان وقنبان قلم واتا مركو لولي ليلى اديق مركا Forsabario كاين Forsabario كمثلهي واقفتي waxaa ku xasuusataa luli leyla waxaas kala amalana abaankii laashiki qaaliga hay oo aan jecelahay soo saaray Axmed Cabdi Gaashaan
إلهي هذا نحرس مقدشو كنو لي إلهي خير فربضن هسي ولكن متقنا ضد بدن وصوصار أحمد دي قاشان أوز خميس أوز خميس عبد الله فاطمة قاسم هلول إلهي نحرس الجنة كورابي ولا شيء أيضا هل كان سجارة يعني وتحسين يا إلهي نحرس الجنة كورابيو لول على حسن أيها كجرت اللولة قبل لي هذا مركز دمبنا إذا عد سقوط قدونه ناريشن كان هيد وريا شهرة هاي فينوس الشيخ داهرة كجرتي صاحبة ديدنا إن شاء الله أيضا لندن يكون نوشهاي مركا والله عبد القادر نوراني والله أنا أنت هذا حسوستا هنا وقدمنا متجعلي وقتها مركا روايدك على أكيد بقى بالوضع أنا 6 ساعات وكغير قادت يا كم ده مركا روايدها هاس ما حكم ده عبد الرحمن وأنت أنا روايدها كوجلين وحن ربا إن أن بشيك أن جعله إن كشيكي أن كان شيكي وحواي عبد الرحمن أنا جورت رواية الليلة يقول رئيس وفرس بالي أن كبلها عبد الرحمن وحاتي سفر ليبيا ليبيا مركان تجي أنا ليبيا فن عن أتقدي وحن كقيب قلنا جامعة عربت ودن أيام تقانا بندق فناد لو قيب قلا يوها أنا قلت فولك قول أنا ودك قف والد كمان تقول الهبل لو فول قول كارد معنا قول لي زمان أو أنا هدانا هاي شعب فنانين الصومالية ولي فولك قول أنا ميل أن تقني أو أنا كوب كسوق قادم حبيراتي مجي ما بتجرب به ولي بين أن كقيب قلنا مجينا هذا بربرك وقدم به برنامج أن كقيب قلنا جرو أونك أنقم أنا قلت دولة دي بربرت ما قرأتين مركان ليبي مركان تغني استودياش مركان تغني وحاكي قبل يرير او ليبيانا واذا عاد انا اذا عاد وحنا قبنين هيس عياري يا لو قبنا قبل وحنا ارك استوديو فرسم يقانك وفيري والله حكي معانا انا كل لا اسل شهور هدا والله فرسم يقان نقول لها هلا وفعنا له ارضي سكول نو اقوم والله هذيك وترتان كان كقيب قلنا وان كسو نقوني مركان كسو نقوني وحان كفكري إن الرادي مقدشو أن كقيب قل فرسمي قال إن نقول أنا مدوا إليا بني مالك كاس أنا أن دلبنا إن فرسمي قال رادي مقدشو أن نقول ويو قبل فرسمي قال مجر قبل يقول رئيس فرسمي قال كم نقطة قبر يعني هو جيران ما نقول يا مركا صادر بتمنى غيره أنا وزير كمركا قلت عن الوزير كان ورفافنت مركا جوجا يعني رجال وزير وحرب إن نقض في السميقان ويقول ما حد عاي هذه الفولكلور دانسات هاي فنانة ذات وكو جعلنا هاي محافنك ما كوح ما يرده فنكيجن وكو جرا وفنك وهبي وجعله إذا عدنا حربنا في السميقان كنا نقض قابك ولا شيء مركا أدو أرضيات أنت أنا مشاركة أنت نسوي حقوق هذا نما سكول كان هذا قلبتي وحن ماله براكتس هبينك وحن لقاي رواية ده مركا إذا عدى هذيك إلهي خير هالسيو وحاجر النين اللي هذا أحمد ناجي أحمد دتك وحي أمري مركا عنده أحمد ناجي سعد معه ونن فرسم يقانها وأحمد ناجي أحمد اللي أنا إبرة وحنا كبرت براتك ما أنا توريكم ما برام أنا ما أنا كي وزيرك وقلادي وحن فريستي استوديو برنامج مركز توري أدو برا نيسو سكول أدو جلسة وقت داري قاعدنا أنا لكن وحن ربي براكتي أبو قل سمة تقانا أخصو أو حبرتو خير الله سيو يساعد النكاس معلم كيجو أحمد ناجي أحمد اللي وحن ملاين يعني يقوم مقارنة إنه كنا ولا ودك السعودية العربية وإبرة خير الله سيو إديت وحن كبر الله قبشو استوديو بلاي يو ستوب كي إيران برتو إنتينا أنا وقف أقول لنا واه إنت بركان هوشي أنقلنا خلاص وحن كور يجي إن الاستوديوش ونسدح بلوضة اللي يصير سجال مع الموضوع هرت تاسكو برت خير الله سيو حجوجا نيكولو سجل ولارك هاي أو متقنا علم مذوبة محمد قد الله ونحرسته وادمتي شعيب زبير حاج حسن ويل حنو ملينا ويلكيسا هذا فرصة مقالة قرية هشام dadkaas ayaan la soo barbaaray marka aniga raadi muqdisho barnaamijkan waxa aan u xiiseynaya raadi muqdisho wuxuu ahaa meeshii aan ku soo barbaaray
halkii aan kusoo barbaaray markaan xasuusto wasaaradda faafinta markaan xasuusto istuudiyaasha aan ka shaqaynayay ya wallaahi websaadyada maanta aan ugu jeclahay mataqaanaa run haddaan runta sheego ya waa websaadyada raadi muqdisho telefishinka qaranka joye wax aan meeshii aan kusoo barbaaray maaragtay hadda telefishinka qaranka markaad daawato astaanta qaranka marka warka ay kusoo gashay ka war dareenkaaga cabdiraxmaan aniga anoo holland jooga aniga wax badan ma joogo wadamadan yurub holland anoo joogaa waxaa soo geli jiray background oo biyaha ay soo boodayaan badda barnaamijkaasoo fiican oon daawano oon ku wada faraxsannahay ayaa waxaa dhacday in laga bao tiriririn SNTV waxaan la hadlay wiil la yiraahdo yarka magaciisa inaan dhumiyaan malaynayaa oo holland jooga waxaan idhi war hebelow he telefishinka qaranka anaga marka uu warka hirka saa usoo dhaho oo telefishinka qaranka soomaaliyeed usoo baxo aniga keligay maaha waxaan mujtamac badanaa la fiirsanaa ku fiirsanaa ama yurub inta aniga aan la noolaa waa la wada fiirsanay waa la farxa qofkii wuxuu dareemaya wadankii marka waxaa intaa u sheeg yarka uu u sheegay waa lagu soo celiyo waana ku faraxsanahay in ay talooyinka qaataan SNTV inay talooyinka qaataan anaga dadka horaanahay waay aragaanahay haddaba wixii dhaliilna waa idin sheegaynaa wixii aa ku fiicantiina waa idin sheegaynaa hana nagu dhicinana anigana maamadiinaan ahay run ahaantiina telefishinka waa telefishin dhalinyarada ka shaqeysa ay wallahi dhalinyaro fiican yihiin anita asaga keliya maaha aniga sida hadda ii muuqata waxaa dadki dhalinyaradii iyo wadaniyadii iyo wanaagga ku dambeysa aad iyo aad maama aada umahadsan tahay talooyinkaagi iyo tusaalooyinkaagina aad bay maxay aadaan usoo dhaweyneynaa waa dabcan kulley dadkuna waa ay daawanayaan ama wayna ogaadeen in aad tahay gabadhii ugu horeysay ee farsamo yaqaanad ah oo maxay ahayd oo radio muqdisho fadhiisata dabcan hadda radio muqdishona dib u hor bilaabay sheekooyinku waa ay noo sii badnaan doonaan wayna noo sii dheeraan doonaan annagoo waqtigan ka faa'iideysanayna riwaayadihii aada soo bandhigtay ama aada ka qayb qaadatay riwaayadii kugu xiiso badneed wallaahi cabdiraxmaanow aniga horta riwaayadii lool iyo leyl waxaa iigu xigtay riwaayad weyn oo caana oo ummadda soomaaliyeed ku weyn oo la yiraha 15 Shumay 15 Shumay hadda dabcan kulley dad badan marka muuqaalkaaga arkaan runtii iwaga sawiranayaan 15 Shumay ya markii jayto oo ku lahaa Shumay Shumay horta riwaayadan kaaga sheekay cabdiraxmaanow aniga riwaayadda horta hore aniga iyo gabar kala matalaynay aniga doorka indhoolkan matalay marka koow riwaayadda originaalkeeda Khadiijo Maxamuud Qalanjo saaxiibaday walaashay ayaa riwaayadda horta ayadana birima atriijeed ana sugunta atriijana sugunta atriij markaan ku leeyahay riwaayad birima atriijada kama dhicin sugunta atriij waayo doorka aniga aan matalay ayaa wuxuu ahaa door aad iyo aad u adag atriijo waa la matali karaa oo qof walba oo dhalinyaro oo wax barta oo matali karaa laakiin doorka aniga aan markaa 15 Shumay aan ka matalayay ya wuxuu door indhool matalayay oo macnaha wallahi qof idhihi karta ma jirto xakiim indhool maahayn joyheer waxaan gaaray markaan masraxa taaganahay for example gabadha saaxiibada ee ninka iga qaadayso oo neesta aan qaadayo waxaan isku soo ridi jiray hoolka weynaa stuudiyihii godka muusikiistaha ay joogeen shacabka ka jiro waaw way dhimatay macnaha ma ahayn door yar wuxuu ahaa door mataqaanaa oo qof kastoo caadi uusan matali karin 15 Shumay waxaa lahaa soo maahan Axmedey Cabdigaashan aad inta badan riwaayadaha ka qayb qaadatay marka Axmedey iska lahaay wala Axmedey iska lahaay waxaa kaloo jirta anigu intaba u dhixir riwaayadaha banaadirgan aad iyo aad u dhigi jiray u dhigi jiray riwaayad Axmedey Cabdigaashan 15 Shumay warbixintii jacaylka libintii guurkayga libaaxa laqay oo aniga Cabdiqaadir Ismaan aan aad u dhigaynay maxay ahayd riwaayado badan laakiin boqolkiiba 85 riwaayadaha banaadirga ee wadanka ka socday 80meedii ilaa 90meedii waxaan ahaa dhaxtaan banaadirga kooxda libaaxyada maaweeliska banaadir la yiraahdo riwaayadooduna waa dhigi jiray gobolada waa berina waaba kooxdeedii weeyaan oo fankii aan ka tirsanaa waaye laakiin adi marka maxaa ku dooratay inaad banaadiriga aada maxay ahayd amatasho adigoo gobolada waa beriga ka tirsanaa maxaa banaadiriga usoo aadaysa wallaahi cabdiraxmaanow aniga gobolada waa beri banaadir kalina kuma ekaan
رواية عانة أو لا يقان أو نصيب در أنا هذا رواية ده للطوبين يا رواية اللي يروح حرين نجيها بقرص أيام كتيراني واقرت قبلي مثلا يعني كم ده حرين نجيها بقرص ده وأدون كلن لقى لقيست وها أبوان كوين محمد عبد الله سنقول رواية ده سنقول كتير رواية ده كل واحد يجي كتير فكسان مركا أنا مركا ضوفه وأن كم قناة ودنك فحلقة بقى إن كوحدي هذا أد هرجيسة مركا أنا بوسكي جوا ما كنت أحكي مال مدايك مركا لما تريس رواية بدون سنقول بقوله أنا متلاجست أو سفر كجت كنت أقصيص عني أنا متلين لكن محاك اللي في إن روايتهن الصومالي أهل دوب وايد إلا نقرن دولة جرتو إدود جرنا هاي محاك أنا سبب والله عبد الرحمن أنا كمشي كين كرتاس أبوان أنت الويدينا يا مو حنصان ودعاية الاسم الدين وقفل بتاريخ والريبي لها في إكزامبل هدور بحنتي تعايل كوكل وحن كدوبنا دوس مريب غير دوس مريب نصيب الحوية شنينا الرواية ده وربحنتي تعايل كليرة عن دوبنو رواية عن أنا أتريجكا خديجة مركا هولا شخكو مغنيت رواية عن الدول وربحنتي تعايلك وبير خديجة بانا مغنيت أنت كلو لمن كنتوشي إبراهيم كنت مدينة عبد علي عاشا ويرو محاهد والله عبد القادر اسماعيل على سو التوريجي راي وحاوي الشيخ أبو بكر أحمد الشيخ أبو بكر شيكالة شكرا شيكالة سيف يعني شعبي ده روايدها بنادرية روايدها الصومالية يا شعبية بدنا مركي الله ده دنك شعبية داوشة هذا إيه ماشي مصر يكون هذا حق دنك ديجانك والله عبد الرحمن هرت الله وضع ولا جعلي سجل أفرق سامبل هذا أنا روايدي وايد يقول ريسي أو أنجيه رجيسة وحاجات وايد حاسس كجعلك يا أذكرها وحاسكلها أباد ربان أبوين أباد ربان أنا جي إفادة مقاصدي برا أنا تشوف قبل وحي هرب بيقلها عده وحات بالقبل هيدو عياري سعود كذا أنا جارسينيس من مودي يعني إني إفادة مقاصدي أوس قميص أوس يجيس أنا عياري وعد كينو وقالي ولا قد أدعوا يرير برعو يقول لهم حركي جرى فلان كانوا تركب يوم قرار حتى ما ماشي ناس وار وحي هرب بيقلها كوار باتنا غير عيالي سعود كذا أنا جارسينيس لكن قبل هذا وقوين أتبع الله وجه على رواية بنادرية قبل هذا كونفرنس أتبع الله وجه على رواية وقوي كلمات لكن أنت بدن مركز رواية بنادرية أي تياتر كأي سارنت هاي وحل الشيء إن هالك الرواية ولا صوص ما يقولون بالأي سارناتو تياتر هالك الرواية ده كلنا مدوك وبن أي سارنات حتى أصببها والله عبد القادر مجست أنا كل شيء هاي أنا واحد ضم بمقول لكن أنت هون for example بيسرتك ولا سوية رواية مقدشة وحي كسرت بالإبر رواية وحيد وقوية مشاكل كي جعلك محلي لا إله بلا ذكر ودافت إلا لو بلا ذكر ودافت ما كان شني تبغى شو مهرجيس أنجين بالإبر لو واديجي مثلا قبل أنت كنا صون نقول أنت دال صفيعة ما قرأتي مركا وحو قلبه sida ay riwaayadaas ay xiiseeda ay u leedahay oo shacabka ay u xiiseynayaan waa mahane tan waa banaadiri oo wax badan ay soconayaan tan waa waqooyi oo wax badan soconays ma jirin riwaayadaha gobolada waa beri roob waa beri wuxuu ahaa waa beri hargeysa iyo waa beri muqdisho waata marka hadda barnaamijka dabcan waxaad moodaa inaan ku xiiqno oo yar galnay maxaa jeceshaa marka inaan hadda soo bandhigno oo aan dadkii aan daawashayno mid ka mid ah xusuusahaagii ma riwaayadihii ayaan soo bandhignaa mise ciyaaraha soo bandhignaa maxaan soo bandhignaa wallahi cabdiraxmaan aniga horta maamaan ahay fankana waxaan u baneeyey dhalinyarada soo socota ama socotaba haddaba socotaba ani muddo 20 sano ah afkaygu waa gaabsana laakiin waxaa la yidhahdaa fanku albaab laga soo galo leeyahay un albaab laga bax ma lahayn ilaa iyo hadda waa aragtayo fanaaniinteeni waaweynaad ilaa hadda axmed naaji oo weli baaqi nabad wado meel walba u wareegayo axmed naaji waa abwaan أحمد عبد القاشان ولا لسيده وكلا سجن معنا كاجها سنجو ولا لسيده ووريجيا هذا دي أدركته أمدي أسكت وانا وذا محد لو المشاحة هدي لاركو حكيم محاسر هذا وصيفة دي سنة والله عبد الرحمن وماي أنا ما أنتو حنجعلها إن أنت لقي تصالك وعكادو ما أنت لقي أيي أنا هذه ما قرأت أيي أنا هاي السويدن بوقشان كون هذه ما قرأت أنا غير هلا أنا صفيا ما قرأت مركا
aniga maanta waxay iga joogtaa tale iyo tusaale fankana aan ku waramo ani fanka waxaa qof ay weydiiyo wuxuu dhahay xakiim aan fanka waa nacdaa lagu yiri maxaa ku nacday waxaa yiri fanka waxaan ku nacay nin fanaan ah aniga hadda magaciisa ma sheegay waxaa yiri fanka waxaan ku nacay haddaan kuu sheego adiga wadana kasoo dhooftay aad timid waxaadna u timid inaad shaqaysato oo fankii aad bandhigto adigna waa nacay walaalo weydiin su-aasha iska dhaaf markaasuu ma abaay ii sheeg fanka waxaa ku nacday ii sheeg waxaa iri hebelow hee amaan helaa national theatreki oo albaabka markaan kasoo galo koobabka iyo biladihii aan caalamka ka keenay ay malaayida ku jireen amaan helaa maya amaan helaa stuudio raadiyo muqdisho waani stuudio koobaad iyo kan labaad ba afafka qalaad oo ka shaqayn jiray aan ka shaqaynayay heesihii wadaniga ahaa ama heesihii jacaylka ahaa jadwalka la iigu soo sameeyey maxay ahayd ansaare amaan helaa waxaa anigu fanka qalbigayga markaan arko waa diiqaane waa xanuunsana xanuun baan dareemaya markaan adduunka anigoo sharaf la aan mari jiray maanta aan ahay qof aan waxba ahayn soomaaliya alagu leh ma garata marka ma jeclaan dhahebal inaa xasuusto nolosha iga dhaaf marka cabdiqaadiro waxaan kuu sheegayaa dadka waxay u maleeyaan dagaalka inuu dadka soomaaliyeed keliya ku dhacay annaga dagaalka ugu weynaa nagu dhaca haddaan nahay fanaaniintii soomaaliyeed bamba atomikada helshiimo lagu dhufto maaragta annagay nagu dhacdo aad iyo aad riwaayadan 15 shumay waxaa dib u dhigteen dabcan markii burburka u dhacay kadib waxaad noogaga warantaa burburka markuu dhacay kadib maxaa samaysa adiga oo fankii oo burburay waxaan ugu maqaalaha adiga iyo rag kale inaad dib boorka uga jafteen fankii inaad dib boorka uga jafteen oo aad Djibouti aad geyseen meelo badan dhaqdhaqaaqay aad samayseen bal taa sheeko yar nooga sheeg cabdiraxmaanow waa runtaha dadka inta hartay inta is-abaabulnay oo is-abaabulnay horta waxaan dhignay riwaayad la yidhaha hoy malanaa kalawda waxaa iska lahay waxa oo sukayna keenan kuu sheegaya riwaayaddaas hoy malanaa kalawda ayaa horta dadka ay isku arkeen si fiican riwaayaddaas cabdiqaadir ismaaciil sow aniga zahruuja riwaayaddaas waxaa malaynaa gabdho kale ay duubeen laakiin annagaa dhignay riwaayaddaas ayaan isku aragnay fanaaniinta isku urursadeen marka dambe aan is-abaabulnay waxaan dhahnay waxaan tusaynaa adduunku wuxuu u maleeyaa inaa aan baaba-anay oo aan dhulka daadanay war inaanan dhulka daadanay aan dunida tusno oo aan nool nahay adiga xoogaa waa fanaaniintii qaranka waa leys aruusheen oo axmed nuur jango allah u naxariistaa nagu jiray markaas waa beri keliya ma ahayn waxay ahayd fanaaniin soomaaliya yaa fanaan ah ayay taagneed maalinkaas marka fanaaniinta waa is urursanay waddanka Djibouti aan ka qayb galnay aan tagnay si wanaagsan oo walaaltinimo oo annagana aan jecelnay ayagana ay jeclaayeen ayaana loogu soo dhaweeyey way noqon weyday waddankii oo 6 sano dagaal xun ku jiray oo maxay ahayd mid hilfaha laysu qaada ahaa ee haddana dadka ay fanaaniinta socdaan markaasaan wallaahi si fiican sameyn oo ciyaarahan sameyn waxaa jira 15 shumay inaan duubnay waxaa kaloo duubnay riwaayad barnaamijka oo goos ah oo idaaya dhaqanka ahaa oo 70 jir iyo 10 la yiraahdo abwaaniin waaweyn ku jirtay Mustafa Sheekh Cilmi ayaa ku jiray waxaa ku jira Cabdulla Raago Daraawish allah u naxariisto 15 shumay meeshaas aan ku duubnay horta 15 shumay markaa maadaama aniga aan joogo sheekooyinka ama geeraaradii maxaa ka xasuusataa marka 15 shumay oo kugu yaab badnaa adiga hadda marka aad ka socoto aad ku qosashaa oo soo xasuusataa waxaan xasuustaa geeraar marka cabdiqaadir ismaan hooyadiis ay iga furto oo la yidhaha shiiday noqoto shumay ilma kuu shubi mayso ayaa cabdalla nuuridiin oo marka hore ijecla aan meel iska helayna cabdalla nuuridiin markaasayna wuxuu leeyahay wallah wax badanaa ku raadinaaye hadda waaba ku hele ya aan isguursan markaasaan waxaa la marka 15 dhigtayda ka yeeroohaysaa waayo ninkii aan isjeclayn oo aan meel ku wada barbaarinay riwaayad waxay meeshana oo ku wada barbaarin anigu guriga shaqaalanka ah laakiin gabar meesha iyadoo yar la keenanaha wiilkaan habartiis maalqabeenka tahayna waan jeclaa isna waa jeclaa habartaasaana kala furta habarta haddii wiilka gabar kale haddii lagu daran waa laga sii fura faa'iido male marka riwaayad waanahay ahayd macnaha ayaanku ayaan ilaahay xikmad weyn ku dhisnayd riwaayadaas cabdulla raaga imaanay oo wadaada allah u naxariistay wuxuu leeyahay sheekhow
bisha waa imisa cabdulla nuurdiin aan leeyahay bisha 15 bisha waa imisa markaasuu lagu laa ma garanaya soo saas dhahaayo ayaa wuxuu noo imaanay cabdulla raagi markaasuu wuxuu leeyahay sheekho gabadhaan jeclaan kuu sheegaya waa tanaa bisha maanta waa imisa soo bisha gaalada mise bisha muslimka ana gaal shaqo kuma leeyin bisha muslimka noo sheeg bisha maanta waa 15 abay ma 15 maqli kariyaan leh wadaadka wuxuu leeyahay 15 waxaa ku nahay markaasaan leeyahay 15 waa sharaystay shoobla shaash igu saaray shakilay habartiisa wuxuu shaydaanku u sheegay shiiday noqotay shumay ilmana kuu shubi mayso ee 15 kan dhexdeeda dalaaqdeeda u sheeg saasaa lagu shooray sheekadii ku dhamaatay ee shiiqow anna 15 dama ma maqli kariye cabdallow adigana sheekadayna dib aan noogu shakaalaato marka riwaayadda waxay ahaydba inuu ayaanka ilaahay uu isku mid yahay rasuulillah ayaan ilaahay waa ayaan uu isku mid waayo dadka iska caadaysta marka riwaayaduhu waano dadka waxay u maleeyaan horta cabdiraxmaan intaan kaga dhex gelin annaga fanka soomaali waano ahaa dadka waxay u maleeyaan wuxun maaha anna dadkan waani jirin warbixinta jaceylka waana ahay 15 shimay waana ahay limintii guurkayga sidoo kale ay riwaayad aan waana ahayn oo dadka wax wanaagsan aan faraynin ani ma arkay الله نحرس نور عثمان جايتو مركا أود جوكتان كله إنما مركز مقصلين يا مركا وكلها مع السلامة مقصلين مسرح مركز سوقنا نسي دردار مجرى وكون حرس إلى وقت جيسي عدمان إلى هو كون حرس وحن يجي وريا جايتو هاي قصر سينيا هذا بيجي قصر سين أصير محاكلون قبها يعني مركز يجي نور اسمه أكتوبر باش يجري هديك الوقت اللي أنا مسرح تاعي ما أباي واي بكابسل سينا صوب مسرح مركان معنا سيدي ويقول لك بيجر شيكا مركا والله إلهي نحرستي الجنة الله كبرابي أنت لمتي إلهي هم نحرستي أنت قربت شو مي يقول هاي دتك من داو سيكرنا وداو سيكر تاع أبايا أنت اللي مفرق ما اسكي جوك تقلك كلا اسكي جيفت. جوجا أقول لك كل من جوجا عني. يا أبايا أنا كشينك اللي جوجنا. كل جوجا كرابو. لا ما أعرف أنا أبايا شمي. أنت ما تكتب شمي. لا إله إلا الله نبدا شمي. لا يا أبايا. شمي. أبايا. لا يا أبايا يا عمد الله عمنا شمي. مع السلامة. يا أبايا يا عمي يا لطيرة شمي. أبايا زاوية. بس يا يتماي شمال أبايا مع السلامة أبايا سنبوس العالم جاي قراني يا جماعة لا إله إلا محمد رسول الله وحالي الناقل فري فدي أمي يال لينك فرنا فالكيس على كلش أو شرف لنا سقدا إلهي كبدي لا إله إلا الله واتهاي شو أنا جن شومي وما كلها شومي باقي صفقة محكوم وغدا حكيم والله دتك لما شومي إيه قانن شومي قديجة قلنجالة أنا قاعد سكقارات ده ولا شيء ساتر الله كواد أنا الجروب كلام مقلوب شومي دتك شومي وضع النقطة مركو كفر أحسن هايو أنا دتك ويناي أنا هاي دتك كلينا مقعد على قاتان إسكا قاتان واحبنا عادي أن ما حكيم أن رواية اللي يرادو أن تضبط تنجر يتمشى محي يدو أي كهل لسه مقع علوس ويام تضبط تنجر يتمشى روايداس wuxuu horta barnaamij googoosa barnaamijkaas wixii ka hadlaysay 70 jir iyo tumasho dad odayaal ah oo raba inay gabdhaha la sheekaystaan si fiican marka Cabdulla Raagi iyo Allah naxariiste Mustafa Sheekh Cilmi Sweden ku nool yahay maanta ما شاء الله وصاحبكي ونجعله عادي باز مقشين ما قلت وانس مقلني عادي يا مصطفى وحول ليه والهدي والله حقنا وهيسنا حولنا وهيسنا أنا سكتوا من واقف عبد الله كله عبد الله كله مكسر ورياه عبد الله إلى كون حارس ويقول وروي عبدت ثم شكم أوجديان لو قلت من هذيك يقول له ورياه ثم شو حكم أوجدي يعني هذيك لو قلت من مركز يقول ورنا لطم ما بخيل المضى داف هذيك مركز يقول الروي هذيك جارها يسوتنا هاي هذيك مركز دمبنا أنا جبر صاحبات ده جات عبد الله اللي هادو حملنا ذلك مريض يمكن يكون مو شاي أيوة إيمان إنه وده هي مركز جات حوجة وكحريف سنة
واقرت حريف آه هي markaasa waxaan leeyahay marka aniga niman aan jecel annagana aan jecelnahay واقرت nimanka ayagana jecelna wax ma haystaan واقرت waxaan leenahay nimanka waa na jecelyihin annagana waa jecelnahay nimankan wax ma haystaane Saan jaadaysaan yeelnay markaasaan yeelaynaa niman aan waxba haysan saan yeelaynaa iska dhaafna markaasaan le maya iska dhaafmayna war niman wax haystaan wax uga qaadayna waxaa noogu jira anaka anigu wiilashaan yarkaan jecelna waxaan helaynaa kuwa wax haysto oo aan waqtigeena ku dhamaysnayn واقرت intanta adiga waxaan isu imaanaynaa odayaasha markaan isu nimaadno mustafa wuxuu ii tirinayaa geeraar aan aad u jecla aad iyo aad oo gabdhihii soomaalida kugu gabdhihii safeynay soomaaliyeed weliba saaxiibaday ahaa oo gabaygaas waxaan umalaynaa mustafa inuu ugu dhahay waxaan tiri 82 qaybaa xataa aniga ka lahaa macnaha gabar walba oo markaas fanaaniinta ahaa waa beri ahaa qeybta ugu qurxdoon oo kasoo qaadanay aad iyo aad marka geeraarka isku uga amaana waxaan leeyahay allah ha ay xasuusin gabdhihii soomaali ugu quruxda badnaa haddaabad igu ammaantay ood baa aad tiri gabdhahaasaad la mid tahay ya wax walba agteeda waa iga xaggaaga marka odayaal maahan waa iska sabanayna adiga oo iskala sheekaysanayna jaada xooga istaa kullay riwaayadda ku jirtaa waad daawan doontaa markaasaan leeyahay dee odaga wax la wad jaada adigana soo taagnaanin sida geeli meesha ay soo taagnaanin aad iyo adi odayaashii waa wixii aan ka sasabahayn wixii aan ka qaadanaa igaartaan jeclan ku aroosay aad kadib ziyto ma amaan igaarti anagoo aroos ku jirnooba inoona maahayaano jeegag noo saxeexeeno oda ziitona aabaheno matalayo maxaa gabdhihi ka rabtaano lacagta jeegagii aawo jeegii caanaha ku jiraan leno u matalayna aad iyo aad marka waxay ka hadlaysaa waa waano 70 sanaaba jirtaa maxaa tumasho kuu geey aad iyo aad ya aad iyo saas waay marka si fiican waa tahay iyadana qayb ka mid a daawasho wacan annagu waxaanu nahay gabdha yaryare ammaantaanu ka helnaaye bal marka ugu horraysana ammaana ammaan iyo lacag buu soo kintarayna ammaan iyo lacag ma adaan ku ammaan weyn haddaan ammaan ku waayo aniga waxba hay weydiinin soco caashiqu sarbee ma leh sakad iyo xishood ma leh waan soo socdaa iyo isigu iyo dhowr ma leh 9 buu jiraa iyo 8 iyo ugu ma leh hadba tiyo sansan kaaga taliya alla waa runtiis sakaliya maraarlaay subaxii adxeedo caad ka midayba fiidaa ama sagal galbeedoo saadaashii roobka ay sameeyaan hablaha jira iyo saamigii horoo tagay cidna lama simaayo saafi hooyadaba sankeedii leedahay sargooyadii maryamale saylic suur deedlay soo jeedsaad calilay saqarur qafsaalay sunniyaal hilaalay indhihiis cabdiyalay sahra mira afkeedlay tima saynab calilay sakaashi gaduudiyo shamso cumar gacmo hedlay oof siijeedkiina kruumiya salkii saynab cigalay xaakiima simi hediilay kubka siman dareeslay sabarkii maandeeflay ciyaartii safkiyalay saxan saxa wanaaglay sawirkii fog soomaalinimadii ku sifayn wadinimo sahriya faadu maalay dabeecaduna waa sadef damar iyo sidii cadar iyo marwe lagu sifeeyey waa runtiise allah yaxasuusinina marata waahidatan ninka calabku siiyow sabadana aad geysida la soco kamaan harin hadday 80 gaadha ilkaheedu siima sana tiro ogama tago inuu kala weyniyo ugu yahay dirdarin sabawiya wad mooye si kala tukuba go'o aniga odayhay moodin mayna hawlaki hadagaal haddaabad intaa igu sifayday gabdhihii soomaali ugu quruxda badnaa haddaabad igu sifayday wax allaali wixii xaggayga jira waa iga diyaar anigu gabadha ma ammaananaysaa mase meeshaan waa tahay soo noqod wanaagsan waa faanoole faray ka muuqadna maama xakiima calin maxamuud kolley waayo iyo xusuus gaar ahi ayay dib inoogu reebtay waxaan filayaa dadkii xilliyada noolaa oo ay la soo shaqaysay ama tiyaatarka ka daawaday ama bandhig fadeenadeedada aada u xiiseynayay inay caawa ay ka bogan doonaan barnaamijkan keliya kuma soo koobi karno taariikhdeedii iyo waayaheedii sheekooyinka inoo haysay laakiin mar dambe ayaan rajaynaynaa inta la nool yahay inaan mar kale aan isla soo fadhiisano oo aada si toosa idinkuna teleefanada aada usoo weydiisataan su-aalihiin xakiimo calin maadaama aada dhanka warfaafintana aada kaalin aada kasoo qaadatay yaa sida gaarka ah aada u xasuusataa oo maxay aad noo soo qaban kartaa wallaahi cabdiraxmaan oo aniga wasaaradda warfaafinta halbowlaan ahaa waxaa kamid a sawirkaan aan jeclaystay oo sawirkaan
ani kaydkayga maanta waa soo faqay sawirkan waa maalintii warfaafinta 21 November haddaanan aanan wax iloobin sawirkan waa afay mar sacuudigu joog jir ma aqana meel ku dambeey aniga waa kana xakiim caalim gabadha binti maxamed sheekh aliira waxay narrationka ana farsamo yaqaan oo ahaan jiray gabadha ismahaan aliira gabadha wiili yusuf aliira sacuudi arabiya ku nooshahay dadkan aad u jeedaan oo dhan waxaan u maleynayaa wallahi wax yaqaan waxa garan doona u maleynayaa cawka iyo maxamed aad xirsataan ayaa garan doona waxaan u maleynayaa jiilka yar ma garan karaan ma garatay marka warfaafinta halboolu ahaa waxaa kaloo jira sawirkan oo China waa China waa famous Sheekh Daahir iyo aniga turjumaanka iyaga China Khadiija Qalanjo saddexda atiriijo oo markaa waxaan ahayn dhulka ka kacday cirka gashay saddexdiina hadda aheedan marka gabdhaha halboolayaashaan ahayn oo markaa jiray waxaa jiro sawir aan China hobaladu waa beri oo dhan annaga af Chinese kale waa ku yeesi jirnay Korea waa ku yeesi jirnay Ruush waa ku yeesi xasuusataa hadda heesa qalad wax ma ka xasuusataa wallahi waxaan xasuustaa heesta furitaanka jungo Somali remyo iwaniswe macnaheeduna wuxuu ahaa jaalnimada Somali iyo China ha jirto macnaheeda ahaa sawirkan waa Talyaaniga asagana waa Italiya الله 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 بقلن جديه ما مركب waxaa xasuus aniga markaan ku leeyahay dadka dahabka iyo lacagta xambaal jiray aniga documentskayga xambaal jiray aadi xakiim xiliyadan hadii adib lagu xiliyo balka war wax ilaa waa ilin ayay ma ahahay hadda dib u noqdo ayay nimada ay baxayso marka ilaa ii macruuf aadi waxa kaloo jiro Rahmaan sawirkan waxa waaye beeriyaan ciyaarayna عيارة بيري ومكة حسن عبدو شمس بشير حسن أنيقة عبد القادر إسمان علسو عيسى بيري عبد الله إساق علي ويلكاست عبد الرحمن وهذا المهام بشو وحوا تاريخ ضرورتان كانوا مركا نواك أنا هذيك كل يوروبا جوكتا وميلانو ترياني واصلت كي هذا سنة كي ويدين مقرن كرك يقدر كاس ضدك صاحبه إنه يقعرون يعني كسرت كل اسمه ويدي بان كان نقدر تاريخنا لينا كل شيء يعني كان وحالي الصومالي بيوتفول واقرتي وبوك صومالي بيوتفول وحكوا هذا أفكار ترياني وحال قري أنت أفكار ترياني أفكار صومالي عن القرين لبيه تدواتك سدحي تدواتك وكنا Somali beautiful la dhihi jiray caalamka markaan tagayna waa qaadan jirnay dadka waan siin jirnay si oo dalkeena wuxuu ka hadlayaa wixii aan warshado lahayn fankeena sidoo ahaa maxay ahayd noloshii Soomaaliya waa kan hadda aniga geeskan u xigaa Shamsu Bashiir ay ugu xigto gabadha ciyaarayso waa Allah u naxariistay Shamsu Umar Ahmed iyo Cabdiqaadir Ismaan Cali Suud marka dhaqankeena Shamsu Umar iyadu laftirkeeda waxay ku jirtay folklore dance heesaha ka bacdeen noqotay waa tahay ما شاء الله هذه هذا ما صنت هاي كل برامج كاني كمان وذ بقول كرنا وقت يبغى أنا نسمع هذا دون هدول هاي هذا يعني حكي ما بربر كي كده مركو دعي فنكي وحاد درامي ساعتين هذا دي وجوجسي أو ما دام أستيد أشكتي أي على النقطة أو أي أدوب أنا سدت كي كلينا بحياة برامج دي هولي أسيب ودان محا حسوس هذا كريبي دلكي وادو جدا بربر كل دعي محا أريت هذا مدرين كجواسده dalkaaga quruxda badnaa ee aad ku faanajeysto marka dalalkan Yurub aad timaado lagu qiimeyn jiro aad qof qaran leh oo qiimo leh oo sharaf leh maanta maxaa dareemaysaa xakiim والله عبد الرحمن حنون أدي أدوين دريمة حنون أدي أدوين دريمة دلكنا وحا قرن كلا قفك معان كيس صوعنا أنا معان كيس صوعنا وكسو بربارنا ولا حن كسو برنا الدون كم يشربنا المرينة يا عالم كبلوجا شرفوا لها هذه سوما ما أنت دلك وبربر لكن وحال العانة داتي ولا دبقبتها هذه يا وحال أنا ما أنت رجينا يا إن اللي استبقبته وحال رجينا إن اللي استبقبته ولا الدنيا ذا ولا قلت جاية التاريخ اللي قلته شوفيا سوما قيبته ورفع فنتنا وحن ويدي سنة يا أنا ورياشن ولا شقي عوك ولا شقي جري تيران ولا شقي جري هيدر ولا شقي جري حق مديقان ولا شقي جري
walaalayaal ama ragga websaydyada iskale dhalinyarada websaydyada iskale ama idaacadaha ka shaqeeya walaalayaalow haddii aniga bakeerigan on jibihay hadday tiraa mama xakiimaha jibinin ama bakeeri waa iga jabayba koobka waa iga jabay soo maaha haddaa tiraa mama xakiima kascaday u jibis iyo haddaa tiraa wallahi mama xakiima waa ka dhacay example waaya koobka waa dhacay waa jabay haddaa tiraahdo mama xakiima koobkan kasay u jibisay way foolxun tahay laakiin haddaa tiraa koobka mama xakiima waa ka dhacay way ka fiican tahay adina waad garanaysaa mar dambe waa taxadir waa taxadiraysaa marka wariyaasha waxaan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa ya in ay wax qaloocan hadday arkaan xataa ay toosiyaan oo ay hebelaa saasiri hebelaa kan aha hanagala dhaaf waa daalne duquushinaan noqonay dalkeenniyaan rabnaa guryaheenniyaan rabnaa maanta ka bacdi aniga iska dhaafay 20 jirka maanta yurub ku nool ma anfacayo yurub waa tahay marka hadda qurbaha timid hadda fanaaniintii xamar ay joogaan oo tiyaatarkii dibudhisaa lagu sameynayo howl badanaa socoto fanaaniintii kale maxaa baaqi ahaad u dareysaa fanaaniintii way kala irdhoobeen oo dalalka iyaa la kala yimid dalkana dibudhis u baahan yahay fanaaniintii qaarkoodna gudahii wadankay ku hareen qaarna qurbahana ay soo galeen aragtidaada ama baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay aniga baaqayga ugu dambeeya wuxuu yahay walaalayaalow in dib laysu qabto fanaaniinta qaranka soomaaliyeed horta waxaan noqonay hal haadi iyo hal hebshi meel iskuma sheegno walaalayaal al aqal aan harow isdhahno ninka maanta soomaaliya muqdisho jooga ee guryihii fieraha ama wadankii muqdisho ku dhibaataysanna wixii aan u qaban karna aan u qabano walaalayaalo waxaan kaloon aan codsanayaa ama aan maanta dowladda jirta aan ka codsanayaa ama warfaafinta aan ka codsanayaa siiba wasiirka warfaafinta waxaan ka codsanayaa in warfaafinta kor loo qaado gobolada fanaaniinta soomaaliya ma ahan waa beri keliya ama nin warfaafinta ka tirsan keliya anigu uma doodayo waxaan u doodayaa fanaaniinta ummadda soomaaliyeed oo dhan soomaaliya gees walbay ka joogaan codkiisa xabadda waa ka daran yahay codkiisa xabadda waa ka daran yahay in dadkaa la daryeelo in dadkaa meelay isugu iman jireen loo daryeelo in dadkaa wixii nolol ay helaan wixii loo tari karo in loo taro walaalayaal wixii loo tari karaa loo taro waxaa kaloon codsanayaa oon maanta aan garab taaganahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wiilashaa dhalinyarada ay ayagoo garan la-aana qoriga sita walaalayaal hala daryeelo walaalayaal hala daryeelo ciidan la-aan dal ma jiro ciidan la-aan dal ma jiro anigu siyaasad shaqo ku mari laakiin waxaan rabaa dalkayga oo nabada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna maba laga maarmaba dal waxa hagaajiya waa ciidankiisa oo cadowga looga dugsadaa marka waxaan codsanaya walaalo in wiilasha garamada aan haysan la gargaaro dadka afmaaladaana ducadoodana way socotaa habaarkoodana wuu socdaa in la iska ilaaliyo wax loo qabto kooda buka la daaweeyo kooda baahan wax la siiyo maxay ahayd niyadda loo dhiso xoogga maanta sida nabadgelyada xoogga loo saaraayo dadka afmaaladaan in xoogga loo saaro oo gruubka xoog uu noqdo taasaan codsanaya aada iyo aada ayay umahadsan tahay taasina waxay ahayd maama xakiimo calin maxamuud oo kamid ahayd fanaaniintii qarankeena soomaaliya hobolada waa beri waxa ay kamid ahayd kooxdii hidaha dhaqanka ee folklore dansiga soomaaliya waxa ay sidoo kale ahayd gabadhii ugu horeysay ee farsamo yaqaanad ka noqota radio muqdisho waxa ay sidoo kale qodob dhexaad ee u ahayd hablihii matalayay riwaayadihii dalkeena lagu soo bandhigay guud ahaana barnaamijkeeni fanka iyo sugaanta oo ay marti noogugu ahayd maama xakiimo calin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa 1 jeer waan uga mahad celinaynaa dhamaanshiyaha iyo aqbalaada ay naga aqbashay xasuumaadii aan ugu sameynayna barnaamijkan ee nagala qeyb qaadato isla markaana ay waayaheedii xusuusteedii la qeybsato bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa farsamadii iyo kaameradii mustafa khan waa cabdiraxmaan xudeyfi wadila tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamo adigana 1 jeer aada iyo aada waxaan u malaynayaa kulley Sweden iyo Holland waa ay kala duwan yihiin barafkana aada iyo aada ayaa maxay ahayd uu ku dhibaya socodkiisa ilaahayna ma taraarixiyo waa la taraaraxa meesha waxaan leeyahay kale ha guuleysto telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo nasiib u yeeshay
أنا تلفزيون ذكرت تجين وما أنت نصيب ويا شيء إن سيو ورئيسنا وما سنتر كون جرادات ما سنتر قد أنا برامج كنينة وأنا جيتاس